xilka qaadistii shalay iyo xilka qaadista maanta waxa ay tusaale u tahay in la doonayo in la dhabar jibiyo dagaalkii lagu ciribtirayo kooxda al-shabaab oo aan haba yaraateeba diyaar loo ahayn wejiga labaad in dagaalkaasi la aado. maxaa isku soo beegay cali jayte oo xilka laga qaaday, odawaa yuusuf raago oo xilka laga qaaday, iyo jenaraal biixi oo xilka laga qaaday. waa saddex nin oo lafdhabar u ahayd dagaalkii kooxda al-shabaab lagu ciribtirayay. waxaan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa xilka qaadistii shalay iyo tan maanta sirta ku qarsoon oo bulshada Soomaaliyeed u iftiimi doono hadduu Allah idmo. ma taqaanaa sababta odawaa yuusuf raage maanta xilka looga qaaday? waxa uu ka hor yimid barnaamijkii Baraawe ee looga soo horjeeday maamulka Koonfur Galbeed. waxa uu diiday in ciidanka qaranka loo adeegsado qaab qabiil oo dagaalka Baraawe lagu horiyo. markii uu si cad uga hor yimid xilka qaadis ayaa lagu sameeyay. ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo bandhigi doonaa arrin laga qariyay oo odawaa yuusuf raage qusaysa dagaalka Baraawe iyo waliba cidda u agajuglaysay markii hore iyo xilka qaadistiisa oo madaxweynuhu si degdeg u boobsiyay. waa inoo muhiim, barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa hadduu Allah idmo. qodobkayga saddexaad ee barnaamijkana waxaan isla eegi doonaa aaway hawiyanimadii 2021 la durbaankeeda la garaacayay. hawiye mahabar gidir iyo abgaal kaliya sidee ku dhacday in taliyihii xoogga dalka Soomaaliya loo celiyo isla beesha abgaal ismaan? aaway murusale, aaway xawaadle, miyaynan dadka kale xaq u lahayn? ma la socotaa in taliyaha hay-adda nabasugidda uu yahay Hiraab? ma soo ogtahay in taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadirna uu yahay Hiraab? ma ogtahay in taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyana uu yahay mar kale Hiraab? miyaynan dowladdu gacanteeda meel kala qaban? waxaan rabaa cadaalad darro ka dhex jirta hawiye gudihii intaan badaarood loo gudagelin ayaan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimi doonaa hadduu Allah idmo. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa wata hawshii uu Muqdisho u tagay. waxaa jiray kulan u dhaxeeyay isaga iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo soo gabagaboomay maqribnimadii adigu saacad iyo bar ka hor inta aanan barnaamijkan duubin. waxa wada hadlay Sheekh Aadan Madoobe iyo Shariif Sheekh Axmed arinta iyo xog ku salaysan kulanka labadaasi mas'uul ayaan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimi doonaa hadduu Allah idmo. qodobada iyo qodobo kale qayb ka tahay arintii SSC iyo SRM duqeymo ay isdhaafsanayaan ciidamada SRM iyo kuwa difaaca deegaanka SSC saacadihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa. inta waqti uu socdo barnaamijka waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin caafimaad iyo baraare insha Allah. adigoo caafimaad qaba inaad daawanaysa ayaan rajaynayaa sida aan anigu caafimaad qabo oo aan kugu soo gudbinayo barnaamijka. muuqaalkana waxaad ka daawanaysaa Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan, meel kale oo ka daawan karaysid ma laha. sidaa darteed ku soo biir page-ka follow garay si aynan barnaamijyada ku seegin hadduu Allah idmo. soo dhawaada. aniga runtaad igu imaanaysaa. waa laga yaabaa runta inay ku xanuujinayso ama aad jeclaan lahayd inaan been ku sheego, laakiin anigu runtaan ka doorbiday been kastood adigu doonaysay. sidaa darteed u dulqaada runta, fartana ha isku fiiqin. maanta xilka qaadis ayaa dhacay, shalayna xilka qaadis ayaa dhacday. xilka qaadistu ceeb ma laha, laakiin Soomaali waxay tiraahdaa waraf iyo shimbiro maxaa wada kulmiyay. saddex nin ee dhabarjab ku riday kooxda al-shabaab sidee baa loogu soo beegay xilka qaadistooda iyadoo loo tafaxaydinayo dagaal kale in la galo? ma dagaalkii shabaab baa laga tanaasulay? maxay tahay sababta loo ugaarsaday shalay iyo maanta saddexdii nin ee hagidda iyo dhabarjibinta shabaab waqti badan geliyay? cali jayte shalaad ogeedeen, maantana waa odawaa iyo biixi. waxaan doonayaa sirta ku qarsoon inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago inta aanan u gudagelin marka qodobkaasi. waxaan doonayaa in aan cadaaladda hawiye ummadana aan u iftiimiyo, Soomaalida kalena ay marqaati ka noqdaan. war walaalayaalow, dalka madaxweynaha waxaa ka ah hawiye, taliyaha nabasugidana hawiye weeyaan, laakiin waa isla Hiraab. sidee ku dhacday in taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, madaxweynihii qaranka, taliyaha nabasugidda, taliyaha booliska gobolka Banaadir intaba inay Hiraab ku qaataan? aaway hawiyihii kale? miyaynan xaq u lahayn xawaadle oo yaa u diiday murusade? haddaanan mursade iyo xawaadle loo ogolayn waqtiga xilka qaadista ay timaado in bedelka iyaga la siiyo, maxay shalay u dagaalamayeen? war maxaa loogu owrkacsanayay mursade? maxaa loo lahaa waa curadka hawiye? maxaa loogu qayla dhaaminayay? haddaanba loo ogolayn gudoomiyihii gobolka Banaadir, duqii Muqdisho looma ogolo, gudoomiyihii gobolka sheegin, taliyihii ciidanka booliska Hiraab, bal fiir ilaah baan idinku dhaariyay. gudoomiyihii gobolka Hiraab, duqii Muqdisho waa isla isagii Hiraab, taliyihii nabasugidda waa Hiraab, bal ilaah baan idinku dhaariyay eega taliyihii booliska gobolka Banaadir waa Hiraab, haddana Muqdisho waxaa lagu leeyahay hawiye iskale.
حوالي مرسل كريا سوقات وحق لك قال جعلي بعد عدة وحق لك جوجنبه وحق لك هدو الله كويد ما يشيقال دودبله ما أنت صوت الله قد تلعب صدق ورمرك اللي نبيه هي كلية مياه هوية اللي صح سوستا ورمرك اللي نبيه ما مرسل له يرتاح ورمرك اللي نبيه تسيا كلية مياه حوالي له يرتاح haddii dowladnimadii nuxurkii ugu muhiimsanaa hiraab uu qaato oo hadhowti marka ay baraha bulshada yimaadaan ragga difaacana ay yiraahdaan hawiye isma keenayso runta haddaan la isku sheegina been baa qarsoon waxa weeye halkaa waxa ka cad hawiye intiisa kale inaan waxba loo ogolayn anigu mid baan leeyahay marka walaalayaal waad u jeedaan markii la dhargo laydima yaqaan markii la baahan yahayna waa laydin yartaa bal fiiri taliyaha nabasugidda gobolka banaadir yaa waaye هراب تليها نبسوجد جود هراب بوليس كجبل كبنادر هراب قدوميها جبل كبنادر هراب قدومي دقي مقدشوا إسلا السجي هراب حد محل مريا مدحوينه أو تليها كوادي عيدا كحوج دلك الصومالية إنه نقضوا هراب حدنا تليه عيدا كحوج دلك هراب أي نقطة ما كانوا ما جرني سبب هويها كلا الواقع يو وقت قد بعتضو أي جرتو بل انت عشر بايدين تهي ان كنت صالة قادة دونتان بايلتها هوية دنبية دربان دنبا دين ليدين قراعو تاريخ ان عاد اخرستانا مهمة واحد دعاية وقتك فائدة لقارو قصارهنا وليدين يرنيا فائدة وليدك قادرية ايش كو هاي وحي سو كردها برنامجyada اللي soo socda haduu Allah idmo wayahay xilka qaadista maanta waxa ku soo beegantay cali jeyto shalay lagu dayay inkastoo iska diiday maantana laba nin oo laf dhabar u ah kooxda shabaab jabkoodii ayaa maantana la raaciyay ayadana waa noo muhiim sirta ku qarsoon inaan bulshada Soomaaliyeed shaaca uga qaado balse intaanan u guda galin gartu waxa weeye qof kasto mu'mina oo Soomaaliyeed oo Ilaahay ka baqaya wax badan buu arki karaya farmaajo markuu talada dalka hayay 5 sano laba qabiil oo isdilaysa lama arki jirin dadku walaalay ahaayeen waa la isjeclaa gobol kasta la wada joogay maalintuu farmaajo baxay maxaa la isku dagaalayaa war maxay dadku isku naceen farmaajo markuu baxay war markii farmaajo laga saaray madaxtooyada villa Soomaaliya oo doorashadii looga adkaaday maxay qabaa'ilada isku dilayaan bal fiiri Puntland waxa ka taagan bal arag waxa ka taagan Ilaahay baan idin ku dhaariyay maamulka Hirshabelle oo qatar loogu jiro in ay gacmaha isla galaan war maxaa baraawo ka taagan waxa soo idin lama arki jirin waqtigii farmaajo laakiin maanta waxaad u jeedaan maalintu Xasan Sheekh mo yimid madaxtooyada laba qabiil oo isku faraxsan oo qanacsan ma jiro dagaalku meel kasto ka holcaya braawo Ilaahay kuma samadiiday koonfur galbeed saddex goobood oo kamid ah adwaa ku idmaayo in gobolkii deegaanadii SSC maanta Soomaali lagu dilayo calanka Soomaaliyeed iyo midnimada maxad u wadataan waxaan oo dhan xilligii farmaajo ma jirin Puntland dagaal kama muuqan oo iska horimaadkii maanta ka dhacay Garowe kama dhici jirin waagii uu farmaajo joogay ama iska horimaadkii ka dhacay gudaha Puntland waxa soo idil marka maxayna tusinaysaa dowladnimadii oo aqoon loo lahayn waxa laga dhaxlo waa maanta waxaad u jeedaan balse waan arkaynaa meeshay ku dambayso haduu Allah idmo taliyii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaay Yuusuf Raage ayaa 48 saacadood ka hor waxa uu gabi ahaanba ka hor yimid in dagaalka Braawo la sii wado wuxuu diiday dagaalka sukeeye ee Braawo inuu sii socdo ninkii wasiir dawladii madaxtooyada wacay wuxuu yiri teleefonkayga dambe haddaan soo wacdo iska jir aniga taliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan ahay wasiir dawlad Abshir Buqaari wax ay ka galay hawsheeda ma jirto waad ka shalaynaysaa lagu yiri yaa u hanjabaya shakhsi wasiir dawlad ku magacaaba madaxweynaha ayaa warqad soo saari doona loogu hanjabay Odawaay Yuusuf Raage muxuu diiday dagaalka lagu jiro raxweyn wuxuu diiday dagaalkii Braawo ka socday maxaa loogu jawaabay in warqadiisii la diyaariyo hanjabaadii Abshir Buqaari iyo diidmadii Braawo oo diiday dagaalka sukeeye ayaa ninkii ahaa Odawaay Yuusuf Raage xilka looga qaaday bal fiiri marka waraf iyo shimbir maxaa wada kulmiyay hadaadan amarka Abshir Buqaari aadan qaadanayn xilkii waa laga qaadaya madaxweynaha kugu dirayna madaxweynaha ku soo qabanaya madaxweynaha wuxuu noqday remote control oo meel walba loo adeegsanayo Odawaay saas baa xilkii looga qaaday
marka dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan natiijada halka ka iman karto oo wada jeedna waana wax wada muuqda laakiin waxaan doonayaa inaan aad u iftiimiyo saddex nin oo shabaab dagaalkii ciribtirka kooxda shabaab ee muhiim u ahaa inuu madaxweynuhu israaciyo oo aan ka soo bilaabayo Cali Jeyte oo aan ku keeni doono General Biixi oo aan ku keeni doono Odawa Yusuf Rage ayaan gornow ka shafi doonaa balse intaanan u guda galin jabhadda SNM maamulka Somaliland baan ula jeedaa waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaqii aan xalay ka digayay taasoo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka jamaahiirta SSC ba ay ka warhayeen madaafiic bay saaka xogaa ka hor isku turtureen taasoo ka dhigan inay damacsan yihiin duulaan kale ciidanka uu Muuse Biixi maanta uu isku halaynayo 7 jir 14 jir 18 jir 16 jir wallahi inaysan tuutaa xitaa qaadi karin caruurtii buu soo geliyay dagaalka waa ka naxay markii aan arkay caruurtii lagu soo waday gawaarida oralka oo la doonayo in markaa dagaalka afka loo geliyo wiil aan la carari karin AK47 ayuu Muuse afaafka hore ee dagaalka uu keenay fariimaha waxa igaga muuqanaya xilligan aan kula hadlayo saansaan colaadeed jamaahiirta SSC meel kastoo aad joogtaan degdeg fadhiga looga kaco dagaalkii ugu dambeeyay baa la gaaray fadhiga laga kaco waa muuqataa natiijadii gabagabada iyo ciribtirka Muuse Biixi in la gaaray marka qof kasto hadii aad kamid tahay taageerayaasha jamaahiirta SSC diyaar garow hadii aad kamid tahay reer SSC diyaar garowba waxa la gaaray waqtigii kama dambeynta dagaalkana wuxuu noqon doonaa mid aan kala go' lahayn dhiiga hal shubo gaadiidka degdega ah ee xawaarahoodu sareeyo hal la geeyo laascaanood hadaad kalkaaliye tahay hadaad dhakhtar tahay hadii aad dhakhtar tahay degdeg laascaanood hal loo tago waxa weeye waa dardaarankii ugu dambeeyay Cabdullaahi Balwaan wuxuu leeyahay heeganka hal la buuxiyo aaga SNM-tana insha Allah ciribta ayaa loo aasi doonaa wixii ku soo kordha xaaladda goobaha ay ciidamadu isku hor fadhiyaan barnaamijyada soo socda ayaan kugu soo gudbi doonaa hadduu Allah idmo mahad karatay oo kamid ah horjoogayaasha al-shabaab ayaa amarkiisu iska shaqeeyay waxa la yiri shabaab saddex nin oo jooga waa la baabi'inaya marka sidee xal loogu heli karaa waxa la yiri Cali Jeyte oo jooga shabaab qofna kama noolaanayo Cali Jeyte xilka laga qaad waxa la yiri Biixi waa taliya ciidanka lugta oo jooga shabaab waa baaba'aya sidee loo daba qaban karaa war Biixi xilka laga qaado Odawa Yusuf Rage waa ninka tacticada dagaalka wada ee ilaa suurto galiyay dhulkii deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle in laga saaro waxa la yiri marka hay Odawaan ha lagu daro xilka qaadistii shalay iyo maanta waxa noocad in ay taalaf dhabarta ka jibinayso qorshihii ciribtirka dagaalka kooxda al-shabaab meeshaas waxa ka cad laba shabaab inay wada shaqeynayaan marka madaxtooyadu laba orod mid hadayso haddii kale bahashu waxay noqonaysaa meeshii ugu liidatay balse wixii ku soo kordha waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu Allah idmo wixii ku soo kordha marxaladahaasina insha Allah barnaamijyada soo socda ayaan kugu iftiimi doonaa barnaamijkan waa muhiim haddii muuqaalka ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa fiidowga inaad like saarto sina share garaysa hadduu Allah idmo nabadgelyo